ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qabtay xaflad ballaaran oo ay shahaadooyin ku guddoonsiinayeen qaar ka mid ah saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan kuwa qoraalka kuwaas oo ay sheegeen inay yihiin kuwa ugu mudan isla markaasina ku guuleystay inay abaalmarino guddoonsiyaan iyadoo iska kaashanayaan ururka saxafiyiinta Soomaaliland iyo qaar ka mid ah hay'adaha UN-ta waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani qoreen madashaasi waxa ka hadlay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja iyo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo ay helayaan afarta guddiga Soomaaliland waliya istaahal labto iyo hal digital product loo xidhiidhiyo processkana hawsha soo qaadatay waxay dawladda iga sii dambeyn ka warrami doonaa Mr. David Roy oo UNRC oo ka tirsan on doonayna iyadana ku laabo runtii xukuumaddu iyada ku dhiirigelisay suxufiyiinta inay qoraan wax lagu xidho waa maanta suxufiyiinta dhalinyarada waxay ku tartamaan hal lagu xidho si aad magac u yeelato sababtana xukuumaddaada way xitaa suuqu bay ka qabataayo way ku ritaan xaq bay u leeyihiin marka xariga ka deen weydaan inay iyaguna tartamaan ay ku tartamaan hal lagu xidho oo qoraan wax kastoo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Warabo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekay taariikhi kala duwan ay soo martay saxaafadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka waramay waxyaabaha looga baahan yahay saxaafadda Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddu ka deyso saxaafadda Soomaaliland cabrun uu sheegay in lagu hayo waxaan aad iyo aad laakiin uga yaab waxa weeye marka aan press conference ka bixinayno halkaan u jeeda anagoo had iyo baan u jeeda shisheeya amba arrimaha dibadda ee adduunka kale amba makaansaye wadamada jaarka nahay ayaa waxaa laga yaabaa inaan sentence kula ku soo sheegno daliisha dowladda wixii halkan arrintaan u soconiyoolkii way ahayd wax naga baxsan ma emphasize garaysaan kelmadda dowladda ku lahayd ayaa emphasize garaysaan waxa iyaguna madashaasi ka hadlay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka warfaafinta Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta warbaahinta Soomaaliland kuwaas oo dhammaan iska daba maray muhiimadda ay leedahay saxaafadda Soomaaliland isla markaasina looga baahan yahay in loo sameeyo gabagabadii waxa munaasabadaasi shahaadooyin loo guddoonsiiyay saddex ka mid ah saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan kuwa qoraalka kuwaas oo ku guuleystay tartan ay qabteen ururka saxafiyiinta Soomaaliland iyo hay'adda UN-ta qaarkood Cabdiraxmaan Arab Daawud TV caalamiga Kalsan Hargeysa.